Su'aal caafimaadka muxuu ka qabaa isqaris bixinta? Faa'iido mise dhibaato ayay keentaa in la ismatajiyo subaxdii hore? Ma sax baa in qaristu ay tahay wasakh jirka ku ururtay oo u baahan in la soo saaro? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada Eastern. Dad badan ayaa aaminsan in markii muddo la joogaba qofku u baahan yahay inuu isqaris bixiyo. Xoololeydu waxay arrintan u adeegsadaan caanaha geela, beeraleyduna waxay u isticmaalaan dhir ay ka mid tahay carmada, raqayga, salamakiga iyo kuwo kale. Reer magaalkuna waxay isticmaalaan saliid ama daawooyin. Qarasta ama dacarta waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile ama gall. Waa dheecaan qaraar oo jaallo ama cagaar xigeen ah. Waxaa dheecaankan soo saaro unugyada beerka, waxaana lagu ururiyaa xameetada oo markii qofku cunno cuno ayaa la soo daayaa si ay uga qayb qaataan shiiditaanka cunnada dufanka leh. Dadka aan lahayn qarastaas calooshoodu ma shiido dufanka, sidaa awgeed waxay dhigaan saxaro dufan leh sida xameetada markii qofka laga saaro oo kale. Sidaa darteed qarastu maahan wasakh ku ururtay caloosha, waana qalad in la iska matajiyo. Isqaris bixintu waa caado aan sal iraadba ku lahayn caafimaadka, waxayna ka mid tahay caadooyinka qaldan oo ay Soomaalidu aaminsan tahay. Ogow, qof walba oo gaajaysan hadduu ismatajiyo dacartaas ayuu matagaa ee ma ahan wax adiga kuu gaar ah. Midda kale, ismatajinta joogtada ah waxay keentaa fuuq-bax, macdanta jirka oo yaraata, khaasatan potassium-ta oo halis ah haddii ay sidan dhacdo. Sidoo kale, ismatajintu waxay dhaawac u geysan kartaa dhuunta iyo hunguri mareenka. Fadlan faafi fariintan oo la wadaag bulshada, waana mahadsantahay.